بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، weli waxaan ku dhex jirnaa suuratu albaqara. waxaa noogu soo dambaysay dadka ahlu kitaabka ah cadaawanimadii xasidnimada ku jirta. maba jecla buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala kuwa kufriya ahlu kitaabka ah iyo mushrikiintaba in lagu soo dejiyo korkiina khayr oo rabbigiin xaggiisa ka ahaaday. rabbina wuxuu ku qasisaa naxariistiisa cid allaala ciddii uu doono. ilaahayna waa alla fadli cadiima u saaxiib ah. maa nansakh wixii aan nasakhno oo min aayatin aayad ah ow nunsiha ama aan ku ilowsiina rasuulkii allow na'ti waan la imaanaynaa bikhayrin mid ka khayr badan minhaa xaggeeda aw midlihaa ama ayadoo kale. alam taclam miyaadan ogayn ana allaaha ilaahay calaa kulli shayin shay kastaa qadiirun alla kari kara inuu yahay. qur-aanka waxaad arkaysaa aayado badan oo wax nasaqa iyo aayado la nasaqay. waxaad arkaysaa aayado la nasaqay oo xukunkoodu la joojiyey iyo aayado macnaha la nasaqay haddana la akhriyo. kuwo aan la nasaqin waxyaabo fara badan oo noocaas ah. mar allaala marka aayad ay soo degtee nebigu tilmaama in la nasakhayna waxay odhan jireen maxaa waaye nebigan marna inta wax sheega haddana ka noqonaya. ilaahay baa soo dejiyey maa nansakh wixii aan nasakhnoon tirtirno oo min aayatin aayad ah aw nunsiha ama aan ku ilowsiina na'ti waan la imaanaynaa bikhayrin minhaa ayada mid ka khayr badan aw midlihaa ayaan la imaanaynaa ama ayada mahalkeedoo ka nafcii waxtar uga badan ummadda. sideeda aayadda waxaa la arkayaa qur'aankoo suuragal ah aayad la nasaqay iyo tii lagu nasaqayo qur'aanka ku sugan. markii hore gabadha zaaniyadda ah fastashhiduu markhaati u sameeya 4 minkum 4 idinka mid ah fain shahiduu faamsikuuhunna fi lbuyuut hadday ku markhaati kacaan guryaha ku haaya ilaa ay ka dhintaan ama ilaahay waddo kale u sameeyo. aayaddaa waxaa lagu nasaqay alzaaniyatu wazaanii fajliduu kulla waaxidin minhumaa 100 jald. sidaa darteed baa qur'aanka waxaa ku sugan naagaha asayda 1 sano inay asayda qaadaan oo loo dardaarmo. kadibna waa la nasaqayoo waxaa qur'aanku lagu soo dejiyey naagtii laga dhinto ninkeeda la oofsado nafteeda inay u sugto 4 bilood iyo 10 maalmood. macnaha qur'aanku saasuu qaarkood qaarka kale u sii tilmaamaya. maa nansakh wixii aan nasakhno min aayatin aayad ah ow nunsiha ama aan ku ilowsiina na'ti waan la imaanaynaa bikhayrin minhaa mid ka khayr badan xaggeeda aw midlihaa ama ayadoo kale. alam taclam miyaadan ogayn ana allaaha ilaahay calaa kulli shayin shay kasta qadiirun alla kara inuu yahay. alam taclam miyaadan ogayn ana allaaha ilaahay lahu inay u sugnaatuu leeyahay mulku samaawaati samaawaadka mulkintoodii waalardi arlada maamulkeedaba. wamaa lakum mana idiin sugnaanin min duuni illaahi ilaahay sukadiisa min waliyin wax weli ah walaa nasiirin iyo wax nasiir ah. wax weli ah oo idin tawaliyo umuurihiina tawaliyoo maamula iyo wax idiin gargaaroo nasiir idiin noqda alla sukadiisa idinma sugnaanin. maa lakum idinma ahaanin wamaa lakum min duuni illaahi ilaahay sukadiisa min waliyin walaa nasiirin. am turiiduuna mase waxaad doonaysaan an tas'aluu inaad su'aashaan rasuulakum rasuulkiina kamaa su'ila sidii ay u weydiiyeen muusaa muuse min qablun horay. waman yatabaddal ilkufra qofkii ku beddesho gaalnimo biliimaani iimaanka faqad dalla waa uu dhumay kaa wuxuu ka dhumay sawaa'a asabiili jidka kiisa toosan. qofka inta iimaankiisa iska bixiya kufri ku beddeshee gaalnimo soo qaataa jidkii wacnaa ee fiicnaa ayuu ka dhumay buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. war muslimiinay
nebigiinna inaad su'aashaan miyaad doonaysaan idinkana sidii muuse ay horay u su'aaleen oo kale. waxaa noo imaan doontaa walaa takuunuu kaaladiina aadaw muusa, ha noqonina kuwii nebi muuse dhibay oo kale. waxaa noo imaan doontaa faqad sa'aluu muusa akbara min haada, muusay su'aaleen kan wax ka badan. faqaaluu arina allaha jahra, ilaahay si caddaana noo tusi bay dhaheen. waan soo marnay su'aalihii faraha badnaa. saa darteed nebi muuse dhibaato fara badan buu ummaddiisa kala kulmay. am turiiduuna, ma waxaad doonaysaan an tas'aluu inaad su'aashaan rasuulakum rasuulkiina kamaa su'ila muusa, say muuse u su'aaleen oo kale min qablu horay. waman yatabaddal ilkufra, qofkii kufri ku beddesha biliimaani iimaanka faqad dalla, wuxuu ka dhumay sawaa'a asabiili, jidka kiisa toosan. wadda kahiirun, in badan waxay jeclaysteen oo min ahli lkitaabi, ahlu kitaabka ka mid ah, low yarudduunakum, inay idiin celiyaan min bacdi iimaanikum, rumayntiina kadib, kufaaran gaalnimo, xasadan, xaasidnimo darteed, oo min cindi anfusihim, naftooda agteeda ka ahaatay, min bacdi maa tabayana, markii ay u caddaatay kadib, lahum ayaga alxaqu xaqa, ee facfuu, iska cafiya oo wasfaxuu ka jeesta, xataa ya'tiya allaahu, ilaa ilaahay uu kala imaanaya biamrihi, amarkiisa, ilaa ilaahay amarkiisuu kala imaanaya. iska cafiya, ka sii jeesta ilaa laydin amra inaad kala dagaalantaan. ina allaha ilaahay calaa kulli shayin, shay kasta dhammaantii qadiirun, alla kara buu ahaaday subxaana wa tacaala. in badan oo ahlu kitaabka ayuu ilaahay leeyahay waxay jecel yihiin inay idiin celiyaan gaalnimo iimaankiina kadib. low yarudduunakum, inay idiin naqaanay idiin celiyaan min bacdi iimaanikum, rumayntiina kadib, kufaaran, kaafirnimo, gaalnimo. waana xasadan min cindi anfusihim, waa xasad oo nafafyaalkooda agtiisa ka ahaatay. waana min bacdi maa tabayana lahum, markii ay u caddaatay kadib ayaga alxaqu xaqa. hadduusan u caddaan lahayn ooyn xaqu weli bayaansan lahayn waxbay noqon lahayd. waa si ula kaca, ee facfuu wasfaxuu, cafiyee ka sii jeestee saamaxa, xataa ya'tiya allaahu biamrihi, ilaa ilaahay amarkiisa uu kala imaanaya. ina allaha ilaahay calaa kulli shayin, shay kasta dhammaantii qadiirun, alla kari kara buu ahaaday. wa aqiimu asalaata, salaada ooga. wa aatu azakaata, sakadana guta. wamaa tuqadimuu, wixii aad u hormarsataan lianfusikum, nafafyaalkiina oo min khayrin, khayr iyo wanaag ahna, tajiduuhu, waxaad ka helaysaan cinda allaahi, ilaahay agtiisee. wax allaala waxaad maanta nafsadiinna u baxsataan oo khayr ah, oo cilmi aad dad bartaan ah, hanti iyo wad aad siisaan ah, mashaakil dad haystood kala dagaalantaan ah, dhibaato haysatood ka faydaan ah, wax allaala waxaad nafafyaalkiina u qadimataan ood u hormarsataan, wax idinka dayacmaayaa ma aha. tajiduuhu cinda allah, alla agtiisaaad ka helaysaan. aayad kale waxay ku dartay huwa khayran wa acdama ajra, ayadoo ka khayr badan kana ajir badan. tajiduuhu waad helaysaan wixii aad alla agtiisa u hormarsateen oo khayra cinda allah. ina allaha ilaahayna bimaa tacmaluuna, waxaad camal qabanaysaan oo aad samaynaysaan subxaana wa tacaala, basiirun, alla basiir ahoo arkayuu ahaaday subxaanahu wa tacaala. wax allaala waxaad qabanaysaan ilaahay waa u jeedaa. wa qaaluu, waxay yidhaahdeen lan yadkhula aljannata, jannada geli maaya ilaa man, mid maahane, kaana ahaaday huudan, yahuud, aw nasaara, ama nasaaro. qof yahuud ah ama nasaaraa maahee cid kaloo jannada ilaahay helayoo gelayaa ma laha. saasay markaa yidhaahdeen. wa qaaluu, waxay dhaheen yuhuud iyo nasaarada, lan yadkhula aljannata, jannada alla geli maaya ilaa man, shaqsi maahane, kaana ahaaday huudan, yahuud, aw nasaara, ama nasaaro. macnaha waxa waaye yuhuudna keligeed bay leedahay, yuhuud meehee cid kaloo janno gelaysa ma laha. nasaarana gooni bay u leedahay, nasaaro maahee cid kaloo janno gelaysa ma laha. tilka amaaniyuhum, waa yididiiladooda.
waa riyo been ah, waa amaaniyay didiila buu yidhi ilaahay. ee qul waxaad ku dhahdaa haatuu burhaanakum, xujooyinkiina la imaada. yuhuud keliya iyo nasaare keliya inay janno gelayso wixii burhaan iyo deliil iyo xujo ah keensta dheh. qul haatuu burhaanakum, xujadiinna keena in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaaya. war run ma ka hadlaysaan? waxaan iska dheh iyo cayaar ma ahee runta ma sheegaysaan? haatuu burhaanakum, xujooyinkiina markaa la imaada in kuntum saadiqiina kuwa run sheegaya haddaad tihiin. bala iska daa inay yuhuudi iyo nasaare keliya janno gashee man aslama, qofkii sallima, qofkii hoggaamiyo u islaama wajhahu wejigiisa lilaahi alle, wahuwa asagoo muxsinun nin muxsin ah qof muxsin ahoo ixsaan fala ah oo mushrik aan ahayn ee muwaxid ah, falahu kaasi wuxuu ku leeyahay ajruhu ajarkiisa cinda rabbihi rabbigii agtiisa. kaasaa abaalkiisa alla agtiisa ku leh. walaa khawfun cabsina calayhim korkooda ma ahaanaysa kuwa, walaa hum mana ay aha yaxsanuuna kuwii murgoonaya, ma cabsanayaan mana tiirayaan buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. falahum ajruhum, ajarkoodii abaalkooday ku leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisa. walaa khawfun calayhim, cabsina korkooda ma aha. walaa hum yaxsanuuna, kuwa murgoonayana ma ahan buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. wa qaalat ilyahuudu, yuhuudi waxay tidhi laysat innasaara, nasaara ma ahaanin calaa shayin shay dushii, wax ay ku taagan yihiin nasaare ma jirto. haddayba nebi muuse rumaysnayn, haddayba kitaabka towraada ku camalfalayn, wax ay yihiin ma jiro. wa qaalat innasaara, nasaarana waxay tidhi laysat ilyahuudu, yahuudi ma ahaanin calaa shayin shay korkii, haddayba ciise inkirayaan, injiilna aysan ku dhaqmayn, shay ay ku taagan yihiin ma jiro. waxaa ayay sidaa odhanayaan hum ayagoo yataluuna alkitaaba, wahum ayagoo yataluuna alkitaaba kitaabkii aqrinaya yay sidaa leeyihiin. kadaalika saasoo kaley qaala aladiina kuwiina yidhaahdeen laa yaclamuuna aan ogaalkii cilmiga lahayn, waa mushrikiintee, midla qowlihim qowlkoodoo kale. qofkan diinta ibraahim haysan bay dhaheen ilaa ayagoo mushrikiin ah ayaa waxay aaminsanaayeenay sheeganayaan inay diinta ibraahim haystaan. ayagana waxay dhaheen annaga mushrikiinta ah ee asnaamta caabudaya wixii aana la mid ahayn wax ay yihiin markaa ma jiro. laa yaclamuuna, waxba aan ogeyn oo aan kitaab iyo waxba haysan, waxay dhaheen midla qowlihim qowlkooda oo kale. faallaahu ilaahay ayaana yaxkumu kala xukminaya baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo, fii maa shaygii kaanuu ay ahaayeen fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa markaa isku khilaafa. wixii ay isku khilaafayeen ayuu ilaahay ku xukminaya subxaana wa tacaala. faallaahu ilaahay ayaa yaxkumu xukminaya baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo, aakhira maalinteeda marka la gaaro saddexdooda iyo qolo kasta wixii ay dhaheen fii maa shaygii kaanuu ay ahaayeen fiihi shaygaa dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa markaa isku khilaafa. waman adlamu yaa ka dulmi badan, macnaha qof ka dulmi badan ma jira waaye miman shaksin manaca manciyey oo diiday masaajid allaahi, ilaahay masaajidadiisa an yudkara in lagu xuso fiiha masaajidadaa dhexdooda ismuhu magaciisa, in ilaahay lagu xuso oo lagu tasbiixsado ilaahay lagu weyneeyo. qofka mancinaya masaajidada alle oo u diidaya dadka yaa ka dulmi badan. wasaca haddana u soconaya fii qaraabiha masaajidada alla kharaabintooda, in la baabi'iyey masaajidadu dumaan, in masaajidada kharaab ay noqdaan, qof ilaahay ku caabudo ama lagu camiro cibaado alla midka u soconaya inuu ka tirtiro qof ka dulmi badani ma jiro. ulaa'ika kuwa maa kaana ma ahaanin lahum ayaga oo uma aha an yadkhuluuha inay masaajidada galaan ilaa khaa'ifiina ayagoo cabsanaya maahane. ayagaa ku habboon in laga manciyo oo loo diido, saa darteed si dhiiranaasho ah oo firfircoon ooy arrintaa ay ku talagaleen inay fuliyaan ayagoo muujin kara ma geli karaan masaajidada, oo hadday dhacdo inay galaanna waxay gelayaan ilaa khaa'ifiina iyagoo cabsanaya maahane.
ayagoo muslimiinta ka cabsanaya maahana si kale ku geli maayaan lahum kuwaasi u socday masaajidada alla inay kharaabiyaan, ka mancinaya masaajidada alla in ilaahay magaciisa lagu xuso, waxay ku leeyihiin fi dunya adduunka dhexdiisa khizyun hoog, walahum fi laakhirati aakhirana waxay ku leeyihiin cadaabun cadaabkaasoo cadiimun markaa weyn. masaajidada alla qofka u soconayo, ku dadaalayo, ku soconaya mar walba inuu kharaabiyo, ka mancinaya in ilaahay magaciisa lagu xuso, adduunkana hoog baa uga sugan, aakhirana cadaab aliim ah buu yidhi ilaahay. waman adlam yaa ka dulmi badan ma jira, macnaha qofka dulmi badana miman mid manciyey oo diidaya masaajid allaahi ilaahay masaajidadiisa an yudkara in lagu xuso fiiha masaajidada dhexdooda ismuhu magaciisa, wasacaa kuna soconayo, u dadaalayo, u sacyinaya fii kharaabinta masaajidada. labada macnaba amase inuu masaajidku kharaab noqdo xagga dhismaya, ama inuu xagga cibaadada ku camirmo inuu ka kharaabiya u socdaa. ulaa'ika kuwaasi maa kaana uma ahaanin lahum ayaga an yadkhuluuhaa inay galaan masaajidada ilaa khaa'ifiina ayagoo cabsanayoo baqaya maahane. lahum waxay ku leeyihiin fi dunyaa adduunkoo uga sugan khizyun hoog iyo dulli cadaabeed, walahum fi laakhirati aakhirana waxaa uga suganay leeyihiin cadaabun cadaab cadiimun ee markaa weyn. walilaahi almashriqu waalmaqrib rasuulka intuu maka joogay baytalmaqdisna waa u tukan jiray, kacbadana waa u tukan jiray, labadaba dhinac ayuu iskula mari jiray. saa darteed baa mar allaala markuu yimid magaalada madiina oo ay ku adkaatay inuu sida yeelo oo kacbada iyo baytalmaqdisba uu u tukado, 12 bilood ayuu u tukanayay baytalmaqdis. wuxuu aad u jeclaa in kacbada loo soo wareejiya sida noo imaan doontaba. markaa kadib bay soo degtay aayado lagu farayo inuu kacbada u jeesto. markaabay yuhuuddii iyo dadkii meesha joogay ka xumaadeen oo ay dheen maxaa marba meel u jeedinaya, marna mashriq buu u jeesanaa, marna maqrib buu u jeesanaa. ilaahay baa aayadda soo dejiyey, walilaahi alla waxaa u sugnaaduu leeyahay almashriqu waalmaqribu, qorax ubax iyo qorax dhac labadaba, mashriq iyo maqribba allay u sugnaatay. fa aynamaa meel allaala meeshii tuwallu aad u jeesataan, fa hamma meeshaasi wajhullaahi ilaahay wejigiisaa ahaaday. ina allaaha ilaahayna waasicun wa alla deeqdiisii naxariistiisu ay waasic tahay, caliimun haddana cilmi badan. wa qaaluu waxay yidhaahdeen waa mushrikiintii iyo ittakhada allaahu ilaahay wuxuu samaystay walad buu samaystay. yuhuud waxay yidhahdeen cuseyr waa canug ilaahay, nasaaro waxay dhaheen masiix waa canug ilaahay, mushrikiintu waxay dhaheen malaa'igtu waa gabdho ilaahay. wa qaaluu ittakhada allaahu ilaahay walad ayuu yeeshay dhaheen, subxaanah wuu nasahan yahay, subxaanahu nasahnaantiisiiyey, tansiih iyo nasahnaan baa ilaahay u sugnaatay. bal iska daa inuu owlaad yeeshee, lahu waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati waxa samaawaadka ku jira oo dhan, waalardi iyo waxa arlada ku sugan oo dhan ilaahay bay u sugnaadeen. kullun ku kasta oo waxa samaawaadkii arlada ku sugan oo dhan ah, lahu ilaahay ayay qaanituuna yihiin kuwa ateecsan. saa darteed haddiiba samaawaadka waxa ku sugan oo dhan iyo arlada waxa ku jira oo dhanba ay qaanitiin ilaahay u yihiin, waa ka nasahan yahay inuu owlaad samaysto. wamaa yenbagii lilraxmaani an yattakhida waladan baa noo imaan doontaa. allaha raxmaanka uma habboona inuu walad samaysto, waayo in kullu man fi asamaawaati waalardi ilaa aati araxmaani cabdan. waxa samaawaadkii arlada ku jira oo dhan asagay u imaanayaan ayagoo addoommo u ah. saa darteed ilaahay wuu ka nasahan yahay, kullun lahu qaanituuna dhammaantoodna ilaahay bay adeecsan yihiin. badiicu asamaawaati waa samaawaadka abuurkooda allaha bilaabay, iyo waalardi arlada. samaawaadkan waaweyn ee tiirla'aanta ah, arladan la fidiyey abuurkooda asaguunan meelna ka fiirsan ayuu ilaahay bilaabay. waidaa qadaa markuu xukminahayo amran amar io arrinna, fa innamaa in kale ma ahee yaquulu wuxuu u odhanayaa lahu arrintii iyo wuxuu xukminahayay kun ahaw, fayakuunu waana ahaanayaa. wax dhib oo culays ah lama ahee hadduu rabo inuu ilaahay wax sameeyo kun ayuu ku dhahayaa, fayakuunu
wixiina waa ahaanayaan. waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen laa yaclamuuna aan waxba ogayn lowlaa yukallimuna allaahu ilaahay muu noola hadlo, ilaahay muu nala hadla ayay yidhaahdeen. ow ta'tiina ilaahay muu nala hadla ayay dhaheen kuwa aan cilmiga lahayn oo aan kitaab la siinin waxna aan markaa ogayn waxay yidhaahdeen. waqaala aladiina kuwii waxay dhaheen laa yaclamuuna aan cilmiga lahaynoon waxba ogayn lowlaa yukallimuna allaahu ilaahay muu noola hadla. ow ta'tiina aayatan ow ta'tiina ow amase ta'tiinaa bay dhaheen. waxay yidhaahdeen ow ta'tiina amase may noo timaado oo noola yimaado aayatan aayad, aayatun aayad. ow ta'tiina aayatun kadaalika saasoo kaley qaala aladiina kuwiina yidhaahdeen min qablihim ayaga ka horeeyey midla qowlihim qowlkooda iyo hadalkooda oo kale tashaabahad waxaa shabbahayoo isku eg quluubuhum quluubtooda, waxaa isku hadal ka dhigay kufrigaa milla waaxida ah. quluubtoodaa tashaabah ahoo isku eg qad bayannaa waanu caddaynay al aayaati aayaadka liqowmin yuuqinuuna qoomka yaqiininayaan u caddaynay buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala. qoomka yaqiininaya qoom aan yaqiinsanayn kolley waxay ku intifaacayaan ma lahee, sidaa darteed ayuu ilaahay leeyahay saasna waxaa ku hadlay oo yidhi dadkii ayaga markaa ka horeeyey. waqaala aladiina kuwii waxay dhaheen laa yaclamuuna aan ogayn lowlaa yukallimuna allaahu ilaahay muu nala hadlo. ow ta'tiina ama maynoo timaado aayatun aayad. kadaalika saasoo kaley qaala aladiina kuwii yidhaahdeen min qablihim ayaga ka horeeyey. aayad haddii ay noo timaadana waa raacaynaa. aayaddaa waxay ula jeedaan qaariqulcaadaadka waxa ah hushii nebi muuse oo kale, hashii nebi saalax oo kale. ow ta'tiina ama maynoo timaada aayatun aayad. kadaalika saasoo kaley qaala aladiina kuwiina yidhaahdeen min qablihim ayaga ka horeeyey midla qowlihim qowlkoodii hadalkooda oo kale tashaabahad waxaa isku ekaaday quluubuhum quluubtooda isshabbahaysaa. qad bayannaa waan caddaynay oo inaan caddaynaa xaqiiqo ah al aayaati aayaadka liqowmin qoom ayaanu caddaynay yuuqinuuna yaqiininahaya innaa anagu arsalnaaka waan ku dirnay rasuulkii allow bilxaqi xaq ayaan kula dirnay bashiiran adigoo bashiir ah bishaaraynaya qof allaala qofka rabbi rumeeya inuu janno helayo, wa nadiiran iyo adigoo nadiir ahoo markaa digahaya. walaa tus'alu lagu su'aali maayo can asxaabi aljaxiim jaxiimo asxaabteeda xaggooda waxba lagaa weydiin maayo. nimankan jaxiimo galay maxay jaxiimo u galeen rasuulka allow lagu su'aali maayo. walan tardaa raalli noqon maysa canka xaggaaga alyahuudu wala nasaara alyahuudu yahuudi raalli kaa noqon maysa wala nasaara iyo nasaarada xataa tattabica ilaa aad raacda millatahum diintooda, xataa intii tattabica aad raacda millatahum diintooda. qul waxaad tidhaahdaa inna huda allaahi ilaahay hanuunkiisa huwa alhudaa asagaa hanuun ah. hanuunka ilaahay baa hanuun ah. walayn ittabacta haddii aad raacda ahwaa'ahum hawayaalkooda bacda aladii kii kadib jaa'aka uu kuu yimid oo min alcilmi cilmiga ah, adigoo cilmigii kuu yimid ogaalkii kuu yimid inaad raacdo ay mamnuuc tahay aad ogaatay kadib rasuulkii allow haddii aad raacdo. walain ittabacta haddaad yuhuud iyo nasaaro raacda ahwaa'ahum hawayaalkooda bacda aladii kii kadib jaa'aka kuu yimid oo min alcilmi cilmiga xaggiisa kaaga yimid maa laka kuuma sugnaan rasuulkii allow min allaahi alla xaggiisa min waliyin wax weli ah walaa nasiirin iyo wax nasiir ahoo kuu kaalmeeyo kuu gargaara ilaahay xaggiisa kuma lihid. saa darteed ha isku raacin waayo raalli maba kaa noqonayaan yuhuudiya nasaara. haddaad aragta inay kaa raalli noqdeen waa markaad diinkooda raacdo. in allaala intaad diinkooda raacin kuma jecla. walan tardaa raalli kaa noqon maysa canka xaggaaga alyahuudu yahuudu iyo wala nasaara nasaarada xataa intii tattabica aad raacda millatahum xataa intii tattabica aad raacda millatahum diintooda
qul dheh ina huda allaahi huwa alhudaa, hanuunkii ilaahay baan raacayaa waayo asagaa hanuun ah. walain ittabacta, haddiise aad raacda ahwaa'ahum hawayaalkooda bacda aladii kii kadib oo jaa'aka min alcilmi kuu yimid cilmiga xaggiisa, maa laka kuuma sugnaanin min allaahi alla xaggiisa kuma lihid min waliyin wax weli ah oo umuurahaaga tawliyo ku maamula, walaa nasiirin wax nasiir ahoo kuu gargaarana ma lihid. aladiina kuwii aataynaahum alkitaaba, kitaabka aan siinay yataluunahu way aqrinayaan qaarkood xaqa tilaawatihi, akhrintiisa xaqeeday akhrinayaan, xaraf kasta xaqiisay siinayaan, tilaawadiisa xaqiisay la imaanayaan oo way ku dhaqmayaan. ulaa'ika kuwaasi yu'minuuna waa kuwa rumaynaya bihi qur'aanka. waman yakfur kiisa ku kufriya bihi asaga fa ulaa'ika kuwaasi hum ayagu alkhaasiruuna kuwii khasaaray waaye buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. kuwa aanu kitaabka siinay isku mid ma aha. qaar ayaa kitaabka akhrinayo, akhrinta sida loogu talagalay u akhrinaya. waxaa noo imaan doonta laysuu sawaa'a min ahli lkitaabi umma, isku mid ma ahe ahlu kitaabka ummad baa ku jirta qaa'imo ah oo taagan oo akhrinaya aayaadka alle aanaa'a alleyl wahum yasjuduun, sujuudaya. xaaladaasaa noo imaan doonta. idan aladiina kuwii aataynaahum alkitaaba, kitaabka aan siinay yataluunahu way aqrinayaan xaqa tilaawatihi, akhrintiisa xaqeeday akhrinayaan. ulaa'ika kuwaasi yu'minuuna waa kuwii rumaynaya bihi kitaabka. waman yakfur bihi qofkiisa ku kufriya kitaabka fa ulaa'ika kuwaasi hum ayagu alkhaasiruuna kuwa khasaaray waaye. yaa banii israa'iila, reer bani israa'iilay, udkuruu xusuusta nicmatiya nimcadayda xusuusta, allatii taasoo ancamtu aan nimceeyey calaykum korkiina, nimcooyinkii aan idinkugu nimceeyey xusuusta. wa annii aniguna fadaltukum waxaan idinka fadilay, wa annii fadaltukum waxaan idinka korqaadoon idinka fadiloon idinka kormarsiiyey cala alcaalamiina, caalamka dushiisa. caalamkaasi waxaa suuragal in loola jeeda zamankooda caalamkii jiray ayaa laga kor qaadoo laga saramarsiiyey. wa annii fadaltukum cala alcaalamiina, caalamka dushiisa. wattaquu cabsada yowman maalin, wattaquu waxaad ka baqdaan ood ka dhowrsataan yowman maalin laa tajzii aysan u abaalgudi karin, aysan u tari karin nafsun naf can nafsin naf kale xaggeeda shay-an waxba. maalin naf kale ay waxse u tari karin, maalintaana iska jira, maalintaana ka cabsada. walaa yuqbalu laga aqbali maayo minhaa nafsaddaa xaggeeda cadl madax furasho. haddii intay cadaab mutaysatay la timaado hanti badan oo ay rabto inay isku cadlisay isku furato, laga aqbali maayo. walaa tanfacuhaa mana anfacaysa shafaacatun shafaaco, wax ergaynaya shafaacadoodana waxba tari maayo. walaa tanfacu shafaacatu shaaficiin oo kale. walaa tanfacuhaa aysanna anfacaynin shafaacatun wax shafaaco ah iyo ergayn ah. maalintaa ka cabsada. walaa hum yunsaruuna aanana loo gargaarin buu yidhi ilaahay. tun loo gargaarayana aan markaa ahayn. intaan maalintaa la gaadhin reer bani israa'iilay, nimcada ilaahayna xusuusta, maalintaana iska jira, maalintaana intaad ka dhowrsan kartaan ka dhowrsada, si fiicanna u dadaala. saasuu markaa ilaah leeyahay. wattaquu yowman maalin ka cabsada laa tajzii aysan u gudi karin nafsun naf can nafsin naf kale xaggeeda shay-an waxba. walaa yuqbalu aan laga aqbalin minhaa nafsadii xaggeeda cadlun furasho. walaa tanfacuhaa aysanna anfacaynin shafaacatun wax shafaacii wax ergeeya. walaa hum aynana ahayn yunsaruuna kuwii markaa loo gargaaro maalintaa intaan la gaadhin, shafaacana wax taraynin, ergana wax anfacayn, madax furashana aan layska qaadayn, aynan laga aqbalaynin. maalintaa ka cabsada. waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu. wabillaahi tawfiiq. wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.